dugsi male qabyaaladii waxay dumiso mooyaane haddaynaan xumaantiyo dilkiyo daynin kala qaadka dibaddaan ka joognaa sharciga daacadda ilaahay dambarkeennu waa jahannamo iyo dogobkii naareede waxa weeyaan waqtigan iminkaan joogno waxaad maqlaysaan walaalayaal iyadoo qabyaaladii oo aan biyo ismarin oo sidii waqtigii jaahiligii qabla alislaam loogu dhawaaqayo oo durmaanka loo garaacayo oo dad waaweyn rag waaweyn iyo haween iyo caruur dhammaan baad maqlaysa tollaay ayaad maqlaysa iyo ka kacay iyo reebel inaga celiyay ayaad maqlaysaa qabyaaladu xad ma leh marka reer kale ku duulo haddana reerkii reerka kale ku duulayay ee reerka kala dulmiyay ayaa iyaga isdulmiyaya iyaga ayaa isdhibaya waayo waxa weeyaan dulmi markaad gasho adigana waa lagu dulmi markaad adigu wax dulmido adigana waa lagu dulmi waa sunnat allaahi weeye haddaad adigu cid dhibto adigana waa lagu dhibi wax xad le ma aha xad ma leh waa basal qabyaaladu basashu waxay leedahay markaad sidaa kolba baal u qaado waad dhammaynaysaa reerka dusha marka la qaado jufa kale waxa jilib baa soo baxaya haddana jufa soo baxaysa soo arkaysa haddana waxa soo baxaya qoyskii ilma adeerkii wixii baa haddana kala tegaya intii isku dhoweyd baa marka dambe qoryaha isku qaadanaysa xad ma leh qabyaaladu waa wax aad iyo aad u xun weeye oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aad uga digay wuxuu rasuulku yidhi dacuuha fa innahaa muntina war iska daaya buu yidhi baasha qabyaaladu waa wax qarmuune waa qarmuun meel xunun bay ku gaarsiinaysaa abu jahl inuu xaqii diido oo rasuulka uu rumeeyo sala allahu calayh wasalam oo kitaabka qur-aanka uu rumeeyo maxaa diiday qabyaalad baa diiday mar baa la weydiiyey markaas baa waxaa la yidhi muxamed sala allahu calayh wasalam bal ka waran baa la yidhi ma beenaala maya buu yidhi beenaalo maaha weligiiba beenanaku kuma aqoon buu yidhi laakiin nebi ree hebel ka soo jeeda annagu rumayn mayno war tii bay maanta maraysaa in la yidhaahdo ree hebel sidee baan muxuu ahaa ree hebel baa madaxweyne leh iyo kuwana sidana iyo kana sidana war ilaahay subxaanahu watacaala laga baqo iyo ree hebel baa dowlada markaa maanakaa la noo dowladayni war dowladda sow qof uuni noqon maayo qof uun baa dowladda noqon reerahoo dhani noqon maayaan maanta mid baa yaa madaxtinimada haynaya berrina ku kala haynaya saan dambana ku kala haynaya qofna uma dhalan laakiin marka la yidhaahdo waxa weeyaan dee ree hebel sidee annaka noogu dowladaynayaan annagoo tartamayno tartan ku jirnay bay annaga dowlad noo sheeganayaan si annaga dowlad noogu noqonayaan war sidee horumar loo gaaraya sidee baan uga gudbi karnaa dhibaatada maanta soomaali haysata inta ay qabyaaladaasi jirto qabyaaladaasi maanta way ragaadisay soomaali meel kastoo joogtaba way ragaadisay way baabi'isay meel ba-an bay dhigtay waxaad arkaysaan ee soomaali qurub u gooyey ee jeeska ka dhigay waa qabyaalada weeye wax alla waxaa googooyaad arkaysaan qabyaalad buu ku dhisan yahay ee soomaali jarjaray dowladaha aad arkaysaan waa duwaylaad dowladaha yaryar ee tamarta yar ee soomaali ka samaysmay waxay ku dhisan yihiin qabyaalad iyo qurun bay ku dhisan yihiin qabyaalad bay ku dhisan yihiin maadaama ay qabyaalad ku dhisan yihiin qabyaaladiina waxaan idhi waa basal ma heshiinaysa dee ilaan waa qabiilkii muxuu noqonayaa markaa in qabiilba qabiilkii kala daawo kii qabsadiba ka kala dulmiyo dulmi baa dhacaya kii kalena yidhaahdo dulmiga inuu iska dhiciyo cadaalad ma imanayso war ilaaha laga cabsado ilaaha laga baqo waxa weeyaan arrintaasi waa arrin yacni waxa weeyaan calaalxumo leh oo walwal leh oo walaac leh oo mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed au madow yahay qabyaalad buu ku dhisan yahay qabyaaladaasi meel ba-an bay soomaalida dhigtay kii aqoonta lahaa iyo kii odayga sheeganayay iyo kii dhalinyartii iyo xamastii iyo dumarkii dhammaanba waxa weeyaan annagaa ree hebelah ayaa la leeyay walmaanan ilaahay laga cabsanayni halkuu maray markaa dadnimadii iyo diintii halkay martay waxaa muuqanaysa casrigii jaahiligii qabla alislaam waxyaabaha ay odhan jireen jaahiligii hore baleeg hadda zuhayr ibnu abi salma ayaa wuxuu yidhi waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam waman laa yadlim innaasa yudlami waa qaaciidadoodii waayo qabyaaladaaba sidaa ku dhisan inta aanan isaga la dulmin isaga intaan la ihaanaysan inta aanan la dilin waa inuu wax dilo sidaa darteed wuxuu leeyahay qofka aanan darkiisa darka xoolaha uu ku waraabinayo waman lam yadud xawdahu bisilaaxihi qofka aanan darkiisa hubkiisa ku difaacin oo aanan ku hor joogsanin oon ku dagaalamin yuhaddam waa laga duminayaa
barkiisii oo biyaha ku shubtaa indhihiisii oo shana xoolaha laga dareerinaya oo xoolaha kale lagu soo aroorinaya oo lagu soo daynaya waa laga dumin buu hadduna hubka la hor joogin waman laa yadlim innaasa yudlami qofkaanan dadka dulminna waa la dulmiyaya haddaana dadka dulmiin adaa lagu dulmi buu leeyahay war maanta tiimayna taagnayn maanad indhihiina maanta ayna ku muuqanintii tiibaa maanta muuqata waa jaahiliyadii waa qabyaaladii oo ambiye ismarin weey oo sidii waqtigii jaahiligii ka daran annakaa reehela oo laabta la garaacay rag waaweyn oo ciroobay oo gaboobay ayaa hadlaaya war ilaa mata waa ilaa goorma intaad qabyaalad ku hadaaqaysaan ee aad wardi ka dhigateen ee aad qabyaalad bogga u garaacaysaan ee carruurta iyo xamasta iyo dumarka aad kicinaysaan rag waaweyn oo ciroobay oo aad ka naxaysa cirada ku taalla ayaa la annaga reebo laabta garaacaya war ilaaha laga cabsado ilaahay laga baqo war ilaaha laga baqo qof kasta isagoo qaawan oo cagaagan oo baara qaba ayuu ilaahay soo taagi doonaa dadka baraha bulshada balaayada ka alkumaya ka aloosay ilaahay ka baqaan ee muxuu ahaa sheergaraynaya ee dabka shidaya ee xansaska koos dhigaya ee dabka horinaya ilaaha ka baqeen ilaaha ka cabsadeen meel kasta laga hadlaya inaga reer hebel qaar baa la dawlad baan difaacayna marka hadday reer difaacayaan dawlad ee wax cadaynayaan dawladdu inay reer tahay soo maaha inay reer tahay umay difaacayaan waar ilaaha laga baqo ilaaha laga cabsado waxaan xasuusinaya 70 sano ka hor gabayaagii weynaa timacade bal gabaygiisa dhageys waa in yar baan ka soo qaadaya dugsi male qabyaalad gabayga caanka ee la yaqaan way dariiq toosan Soomaaliyay waa laga daday ninka doday distoorkii iyo waxiga diintii ka carrawiyay dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane haddaynan xumaantii iyo dilkiyo daynin kala qaadka dibadaan ka joognaa sharciga daacadda ilaahay dambarkeenu waa jahannamo iyo dogobkii naareede dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane dirdir la isku laayiyo intaan weerarka daba joogno dirdir la isku laayiyo intaan weerar daba joogno oy dumarku weerkii sitaan danabadii waayay oo sida dareemada u yaal maydku dibadiina wad la doogsan maysaan haddaad dunida joogtaane dugsi male qabyaaladi